marka ilaahay jalla wa ala naguma qiimeynaya waxyaabaha dadku ay dibadda ku haystaan ee bini aadanka waxa lagu qiimeeyaa dhaqanka wanaagsan ee noloshiisa ku dhex jira hadday iimaan tahay hadday alla ka cabsi ay tahay hadday cilmi ay tahay hadday taqwad ay tahay hadday akhlaaq wanaagsan ay tahay taasaa ilaahay kugu jeclaani haddii ilaahay ku jeclaadana bini aadanka oo dhan baa ku jeclaan cabdullaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa soo galay magaaladii baqdaad waa cahdigii haaruun rashiid weeyaan magaaladii waxaa laga dareemay dajax sawt baa laga dareemay iyo guux iyo isdhex socod leanna markaasaa xaaskii haaruun rashiid zubayda la odhan jiray ayaa waxay ku tidhi xaraskaygii ilaalinayay bay ku tidhi magaalada maanta maxaa ku soo biiray ii sheega markaasaa lagu yidhi imaam baa soo galaya imaamada a'immada muslimiinta ka mid a leanna dadka muslimiinta oo dhan ninkaabay maaragtaanay u soo maaragtaanay ay kulankiisa masaajid iyo khayrka u soo camirayaan leanna markaasaa masaajidkii jaamica ay u soo galay 100,000 oo qof dad ka badan ayaa markiiba xalaqadda fadhiisatay dadkaasi adab bay lahaayeen cilmi bay lahaayeen alla ka cabsi bay lahaayeen akhlaaq wanaagsan bay lahaayeen culammada qadarkayga ayay garanayeen dadka islaam muuminka beriga iimaanka lagu qiimaynayay muslimiintu diinta isku jeclaayeen caamada muslimiintu culammadooday ku xidhnayd caamada culammaday jeclayd culammaduna caamaday la soconaysay wax baraysay masaajidkii buu soo galay markiiba darsi buu bilaabay dadna sheekhii u hindhisooday baa la yidhi maxaad u malayn markuu hindhisoodu alxamdulilah uu yidhi 100,000 oo qof ayaa min samiimi quluubihim ayagoo qalbiga ka jecel waxay yidhaahdeen hal mar keliya yarxamuka allah bay yidhaahdeen sawdka ka soo baxay 100,000 oo qof ayaa qasrigii boqorka laga maqlay zubayde way yaabto waxay ku tidhi ciidankii ilaalinayay bay ku tidhi waa maxay qayladaasi waxaa la yidhi dhibaata ma dhicine sheekhi baa hindhisooda waa ducadii loo ducaynayaad maqashaa lagu yidhi leanna markaas qiira qabatay way maseertay haaruun rashiid bay u gashay kicisay ku tidhi ummadda maadaa xakumo amiir u ah mise wadaadkana amiir u ah markaasuu ciidankiisii buu ku yidhi wadaadka magaalada soo galay waa kuma markaasaa lagu yidhi waa cabdullaahi ibnu mubaarak baa soo galay caalimkii reer khuraasaana ee zaahidkee muxadidka ahaa baa soo galay markaa buu zubayde ku yidhi naa iska jiibso iska fadhi buu ku yidhi aqalkaaga annagu qoloftaan xakunnaa culammaduna qulubtay xakumaane annagu qoloftaan xakunnaa culammaduna xaggay xakumaan culammada qulubta yaa ku xidhan maadaama culammadu ilaahay ay ku xidhan tahay ayakana qulubta dadka ilaahay ku soo xidhaya zamankaas dadka waxaa lagu qadarinayo lagu qiimaynayey iimaankaa lagu qiimaynayey cilmigaa lagu qiimaynayey akhlaaqda wanaagsan baa lagu qiimaynayey nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa waan iibinayaa meeqaad ku gadaysaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi 120,000 oo dirham baan ku gadayaa markaasaa lagu yidhi 20,000 waa macquul laakiin 100,000 ee dul saarantay maxay tahay lagu yidhi wuxuu yidhi 20,000 waa aqalka qiimihiisii waa runtiin laakiin 100,000 waxa weeyaan waa darisnimada aad la darsaysaan cabdullaahi ibnu mubaarak baa daris la ahay markaa darisnimadiisa ayaan ku iibinayaa 100,000 buu yidhi 100,000 والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه نبي عليه الصلاة والسلام صدح جرب إلهي كدارته وحيري والله با كدارته إيمان ملأ والله با كدارته إيمان ملأ إلهي مرمي والله با كدارته إيمان ملأ يا رسول الله وأيبا لقول قفكاسي وقفك جاركيس وشركيس أي كنبت قلي وأيام qofkaas ilaahay aakhire ma rumayn buu rasuulku akhlaaqda wanaagsan sidaasaa loo kala iibsanayay dadka akhlaaqda wanaagsan ee darisnimadooda dadka dhaqanka wanaagsanne ee ilaahay ku xidhan sidaasay ummaddu ugu xidhnayd sidaasay maaragtaanay masaajidda ummaddu u soo camiraysay yaa lidaalika walaalayaal ilaahay naguma qiimaynayo qabiil ilaahay bini aadanka kuma qiimaynayo haddii qabiil lagu qiimaynayo cid abaalahab nebi maxamed adeerkii buu ahaa abu taalibna nebi maxamed adeerkii buu ahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuniya weeyaan alhaadii hanuunkana ilaahay isagaa bixiya
إله عز وجل أبو لهب قدري إنه قال لما كنت انتو بلال الحبشة هداية الله قدري إله سهنون يا أرجع ما سماهم رجعت كده لا تماها وحي لا يكونوا قيمين مادة دتكم أنت أي سكوب قدرين يان هيبلكي العقد بدنا هيبلكي فوق وين الكاكدستي هيبلكي ورشدها بدل لها هيبلكي درجة وين لها هيبلكي جوارد وين لها هيبلكي دكانة وين لها هيبلكي بخارة وين لها معك دبيس قبر جيسي أنا واقف معك دبيس أنا معك دبيس قبر جيسي أنا واقف قبر جيسي كل الذي فوق التراب تراب وحنا رد الدنيا لواعيد وعيد عيدنا وكنا غنيا دلك وعيد أقلد وعيد قوارد وعيد أدق عيد باتاي لعقت وعيد دركاق وعيد عنداد وعيد داره وعيد قصورته وعيد آودت يا الدنيا سوى عمري آوي لما سوق لما قال مرقاسو للشيخ وأرقوم حكويري magaaladii camirnayd dhexgay magaaladii camirnayd ee dhisnayd baa rabaa inay tusay magaaladana waa ku cusub ee igee ibraahim al-adham baa kaxeeyay allah u naxariistay magaaladii camirnayd baa rabtaa miyaha soo raac uu kaxeeyo magaaladii uu ka saaray markaa buu war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada banaankeegii baad iigu wadaaye wuxuu magaaladii camirnayd oo dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyay buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi wuxuu waa qabuurihii wuxuu tan cidda timaada kama noqoto laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda halkana yimaadaano halkana camirmaysa dadka halka soo galana ma noqdaan buu yidhi taa way naaqusmaysaa tanna way biiraysaa buu ka yidhi yaa muqaffal إنك وحلنا مقالة بيدا موين دسنتي مقالة ما دسمينا قبورها دسماي مقالة ما بيريسا بس قبورها بيريا بل يجي جوابها قبورها عمر ماي وايو دتك مقالة كل نول مالي والبكوت نفرت قفاني من يسول لك كحين يا لكن دتك قبورها قلا قبورها كما سو نقدان يكو مركا تان لك سو نقم با عمريسا تان لك بحايو ودadkeegu way sii yaraanayaan taa laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa waa qabuuraha weeyaan waa qabuuraha habeenada kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummul-mu'miniin Aisha radiyallahu anha aqalkeedu nabigu jiifay markaasuu nabigu ku yidhi Aisha ma iska kaydayn ilaahay han caabudeen markaa bay ku tiri ha iska cibaadayso لأن النبي يقول أنتو سرك عيب وطهارة قاتي وقبيس لأنه هو يسيستي صلاة النبي يقول بلابي عليه الصلاة والسلام صلاة النبي يقول آدو ديري لأن عائشة رضي الله عنها وحيت روان قم أي يركدب بان سوكعي أقل قيبان تاتابت أكتيدي النبي يقول مجيفو وان ايقي متاقنا النبي يقول مجوغ ماشا وحاي قال الدرين وحاني السيري كل النبي يقول ريريه سيكلو عاو أبورو وريريه سيكلو تقي markaasaa ka soo daba baxay tiri waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyayo oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nabiga fadhiistay markaasaa fikiroon isiri alla Aisha waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyay xilliga oo waxaad istiri nabigu reerihiisii kale reer ka mid oo kullay u tagay bal doondoon nabi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay oo ooyaya muntasif al-layl أي النبي صلاة الليل كمر كنت كذي قبورها إن تنزل تاجيب النبي قبورها حصو أي دول جوصلوا آخرته النبي حصوصنا يا ده مركز عائشة هاي رنتي وصل نقطي أي قل أقل كي صوب بشيء قبشي بهوستك قش مركز النبي أوجد عليه الصلاة والسلام من معجزاته وحكم ذا بالليل سيد النبي محمد حق هرو وحوق أركو أي حق ضمنه وأرك جريب بالليل لأن مركز النبي مركب هو أركي وسك صون نقطي لأنه هو يمد عائشة أو قبشي مركب فراش كهوستك قش هو يمدي مركب النبي كور فريستو يقول عائشة محاد عين وادي سوى جدي مركب يقول له وحبا مركز السودقي إلى قبورها يدبي يمدي ما مركز يا رسول الله
adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kala soconaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtaan xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa baa tiri raalli ah iska saaxay ku tiri waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo in la dhimanayna aad ku xisaabtamaysid xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaataa waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka u horaysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisaana waxa u sababa waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyada waxay noqonaysaa ka caakuf waad ka caakufi noloshaada